Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa waxa ay ku waramayaan in la helay xogta gabdhihii dhibaatadii iyo tacadiga u geystay gabadha Oromada ay u shaqeynaysay iyadoo halkaasina falkaasi argagaxa leh ee dhibaatada leh oo dadka Soomaaliyeed badankoodba ka oysiiyay la doonaya in la marsiiyo waxa ay muteysteen oo lala tiigsada sharciga. Waxaa soo baxaya in la helay xogaha dad gabadhii dhibaatadaasi iyo tacadigaasi geystay iyadoo dadka caanka ahna ay baahiyeen wararka la xiriira sidii loo heli lahaa gabadhaasi. Haddaba daawadayaal intaanan u gadagelin qodobkan waxaan ka codsanayaa ugu horreyn inaad like saarto si uu u gaaro dad fara badan lana wadaagto ciddii aanan ka warqabin si iyadana ay u sii kaalmayso. Markii la baahiyay fiidowga argagaxa leh ee baraha bulshada gilgilay ayaa waxaa iska soo daba dhacaya baadigoomka loogu jiro dadka dhibaatadaasi ka dambeeyay ama gabdhahaasi iyadoo dadku ay kala qaybsameen dhaheena waxaan waa wax baranki ah dadna ay leeyihiin cid walbo aragtayna ay aad uga gilgilatay oo ay murugtaasi ku beerta qaarkoodba ay seexan weeyeen. Dadkii dhahayay prankiga wuxuu arrinkooda ku soo gabagaboobay in ay ku laba qabowsanayeen qof Soomaaliya waxaan kama suurtoobay isdhaayeen Soomaalina waa dad fara badan oo laga helaya dad wanaagsan dad xun dad bahala ah sida ka dhacdayba dalkeen uu u burbursan yahay. Badanaa waxaa dhibaatada la saaraa ragga kaliya laakiin bini'aadanimadu kuma xirna rag iyo dumar hadduu qofku markaasi xun yahay. Haddaba fiidiyowgaasi waxa uu dhibaato iyo argagax ku beeray dadka Soomaaliyeed iyadoo halkaasina baadigob loogu galay sidii loo heli lahaa cadaaladna ay u heli lahayd gabadhaasi walow maaski loo xiray sida fiidiyowga ka muuqatay oo soconaya muddo ku dhawaad 12 daqiiqo ah ay dhehaysa iga xira maaskiga si aanan boolisku ii qaban. Meeshaasi waxay u egtaa meel sharci ka jira oo waliba cabsi ay ka hayso ay daba ka warqabto. Saciid Maxamuud Gahayr oo ah ololayahan u dooda dadka xuquuqda insaanka ah sidoo uu sheegay isagu oo waxana qora bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada ayaa waxa uu yiri ugu dambeyn Najma Axmed oo gabadha yar silcisay waxay u egtaa markaan inuu akoonkeeda soo helay gabadhii wax duubaysay ee dhibaatada u geysanaysay oo cunsiinaysa dambaska iyo roodhida oo faraha dabka u gelinaysay waliba fiidiyowgaasi inuu xaqiiqiya waxaad ku ogaanaysaa marka ay tiri oo dhamaan raba fiidiyowga istaag ay tiri biraal waxa iigu jiro aan ugu socono qoraalka uu soo dhigay bartiisa. Ugu dambeyn waxa uu yiri Najma Axmed oo gabadha yar silcisay waxa ay qiraal ka tahay in ay bareeday falkaasi oo ay kas u samaysay waxa ay u jeedinaysaa dhibanaha ay gaadhay hadimada aad aragtaan walaalaha ku sheegay xaraabe ama pranki waxa uu ka hadlayaa fiidiyowgaani inuu baranki noqon karin dad baa waxay dhahayaan baranki baa ummadda Ilaahay ku salciyay waa tahay naftooda ummadda iyo qofka lagu xadgudbay ha raali geliyaan buu yiri waa dadkii dhahaya prankiga iyo xaraabe qiil looma heli karo ayuu yiri adoonsiga hablaha kani waa ciwaanka gabadha ku hal adag tallaabada ay samaysay in ay ku kacday hagardaamo intaas ka badan bay u sheegtay dadka ka war helay 3 cisho ayaan suuli ku xidhay inaan muuqaal toos ah live soo galo aniga oo jarjaraya bay ahayd waa eeyad baa siyaabo kala duwan looga hayaa oo waaman dishayay haddii war u haya in noo sheeyin kala xataa oo baadigoobkeedii ayaaba lagu jiraayo waxaan ku iraada halkaas bay qarab u jirtay wayba ku sii hanjabaysaa oo isla sii qumanta waa tahay walla ummadda dad badan waa laga wada helaa. Sidoo kale waxa uu soo dhigay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qoyska oo qaabilsan shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ciidanka socdaalka oo mas'uul ka ah shisheeyaha dalka sharciga ku jooga waa loo gudbiyay buu yiri xogta gabadha
qiraalka ka ah xadgudubka ay samaysay oo dhammaystiran iyaga oo xilkooda gudanaya ayay ila soo xidhiidheen oo ciidanku waxay baadigoob ugu jiraan dulman ka takrifalaha dhibaatadaasi geysanaya si ay u soo helaan. ciidanka booliska iyo guddiga xuquuqul insaanka qarankana waa la gaadhsiin doonaa berri insha Allah buu yiri. arrinkaasi gacanta sharciga ayaa la gelinayaa haddii eebbe yidhaahdo. cid kasta oo ka damqatay waxa ay muujinaysaa bani aadanimo iyo damiir nool. waa arrin dowlad, shacab iyo ummadda ka midaysan tahay. guud ahaan qofna ma jecla in la duudsiiyo xaqiisa. taasi waa run oo cid doonaysa in qof bini aadana addoonsiyada qarniga 21aad addoonsi lagu noqdo. oo ognahay Soomaalida sida ay ugu silacsan yihiin dunida ayna jeclin xataa si xun in loo fiiriyo. taasi dhibaato ay keenaysaa. Itoobiyadan aad aragto Soomaalida iyo Kenya xor bay ku joogaan. cid inta guri ku soo xirata dambas cunsiinaysana ma jirto. soo markii dadkii dariskaaga ahay aad sidaas ku samayso, adigana beerti aad qodatay oo beertay miraheeda adiga ayaa goranaya xumaan iyo wanaagba waxa ay tahay. baahinteena kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal. wixii ku soo kordho mar walbana waxaad isha ku hayn doontaan wararka nagu soo kordho aan halkan taan idinkugu soo gudbin doono iyadoo isha baarkeedana aynu idin keeni doono. intaan kan mid lamida ku kulmi doono amaana Allah. shayga aadamaha u mudan oo waa dugsiga hooyo horta dunida laga aflixi hoose lagu daydo beri hooyay waa aliga haweenku waa nolosha shayga aadamaha u mudan oo waa dugsiga hooyo horta dunida laga aflixi hoose lagu daydo beri hooyay waa aliga Haween kaalintay galeen u kay qaateen ragogay